Alo, sirena, Allo, hai vedere non tiene. alo, sirena, Allo, hai vedere non tiene. salaamka marka xigana waa kuwa mahadsantiin inaad nagala soo qayb gashaan kulankaas seminaarka oo aan ku baranayno afkeena dhaqankeena iyo hidaheena oo aan u gaarka leenahay marka laga hadlayo hidde iyo dhaqan ama af ay ummadi leedahay waxaa yeelan kara horta ummad meel degta oo iyo dad jiro oo meel ku wada nool marka ugu horeysa inta aanan dhaqanka gelin oo hidaha aanan gelin oo afka aan gelin horta dadkaan halkay degaan maxay iyagu yihiin halkay ka yimaadeen markaan fahno ayaan dhaqankoodana fahmi karnaa markaa seminaarka qaybaha wuxuu isugu juri doonaa oo ku baran doonaa horta dalka ay tagaan waxa uu yahay dadka Soomaalida waxa ay asal ahaan yihiin deegaankooda waxa uu yahay dunyadooda waxa ay tahay ama xoolaha ay dhaqdaan duurjoogta ay leeyihiin ama xayawaanada duurka ku jiro kadibna waxaan u gudbaynaa hidaha dhaqanka iyo afka magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway ayaa martigelisay kulan ballaaranka oo isugu jiray tababar iyo bandhig dhaqameed afka suugaanta hidaha dhaqanka taariikhda dhulka iyo deegaanka Soomaaliyeed waxaana barnaamijkan si wada jir ah u soo qaban qaabiyay bahda Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway iyo sidoo kale golaha jaaliyadda galbeedka Norway SRV wele geedo qorda jirin kan kuwi haana leere kan hakiigo buri leere kan kayar oo ulaade ayaa geeyay wandinay kisbo bukura leere bukur afka hal afana wada leenahay laakiin aan guriyaan jiro tusaale ahaan gobdhigii afka Soomaaliga labadii la qoray macallimiinta lagu sii daayay baadiyaha oo marba magaalo ay tagayeen marka goboladan oo shabeellaha dhexe macallimiin qoyga iyo bariga ka yimid tagay Soomaaliga baray geed koostiisa Israa'iil sabuurada ku jiray dadka weyn iyo dadka yar wada baray marka sabuurada wuxuu ku qoray macallinka inay yar oo gabara baabarta ka buuxiyay marka wiilkii aabiya ardayda ka mid ahaa odaygu uu fahmi waayay markaasuu dhahay wiilkaygu muxuu ka wadaa markaasuu dhahay wiilkii aabiisu sharxay wuxuu ka wadaa mataqaanaa oo dhaheen muruq amaha ka buuxi خمس بريتها ونعمل بعدها كبول تكلم ذكر قالوا كسروا كلمة التهيئة لكن هو نسمعنا وذلك سؤال علينا ماشي تجا وأفقود أنا حاضر لكن أفقودية كلا دوان على النهار ناس على كثير يسون إنها وحوم كلا دوان kulankan oo ahaa mid ay si weyn ugu riyaaqeen dhammaan intii ka soo qayb gashay ayaa waxaa qayb ka ahaa tartan aqooneed ku saabsan hidaheena dhaqankeena taariikhdeena afkeena iyo dhulkeena Soomaaliyeed waxaana ka qayb qaatay guud ahaan dadkii goobta ku sugnaa kuwa oo si toos ah uga jawaabayay su'aalaha oo ka soo baxaya shaashad horteeda tilay waxaana halkaa lagu guddoonsiiyay bilad sharafeed iyo hadiyado qaali ah kaalmihii koowaad iyo labaad iyo saddexaad dadkii galay kulankan oo ahaa mid si weyn looga wada faa'iideystay ayaa sidoo kale waxa hadallo dhiirigelin iyo kelmado qiimo badanba ka jeediyay qaar ka mid ah indhaargaradkii ka soo qayb gala kulanka kuwa oo aragtidooda fikirkooda iyo weliba sida ay la tahay ku kordhiya kulankan ku saabsanaa laguna baranayay hidaheena dhaqankeena taariikhdeena afkeena iyo isirkeena Soomaaliyeed وهاوين نقوه رمي الدوسكي حوجينتا لخنك الصومالية وانا ميت مو جنايا فهذا انا قبل اشوشنان لا ولا جيتك يو الى انت اقول سيجينا بلشو رجالي هاي جنريشن كينا صدقها لكن والله كاري كراي لا سي وضو inta soo kuno sanadood baa la wadi karaa hadii afkaas la horumariyo runta fiican lagu hadlo oo lagu heeso lagu gabiyo aan ku sheekaysano mararka qaarkood murti aan u samaysano waxaan islaahay faa'iido badan bay loogu jiraan misri oo dhaqanka ku adkeeyo af Soomaali wixii tan waa tagay kuwa hadda anagaas waa tagayba kuwa hadda jooga xaliga gaawo yarka ilmaha isku kaasoo Soomaali bata hooyada afdoojiga ku hadda saska dhaafto saasoo kale saasoo Soomaali ku barkana alwaqada aadi ma sayin shiile bila aadi ma sayin barnaamijka sameeyay nobody saansidana kan kale wax fiican wax ugu kala faa'iido kara waa aad iyo aad ugu mahadsantihiin wixii ugu wanaagsanaa ee Soomaaliya isugu timaado
diinta ka dambeeyeyna waa samayseen oo ah dhaqankeeda dhaqankeennuna waa waxaynu nahay xambaarsan qofku hadduu dhaqanyahan yahay macnaataa wuxuu yahay buu yahay alxamdulilaahi soomaalidu waxay ku wanaagsan tahay si kasta oo afku ugu yaraado si kastoo ay say wallaahi u noqdaan haddana kelmadda la yidhaaho soomaali way jecel yihiin aad ayaad u mahadsantihiin wax fiican ayaad noo soo bandhigteen af soomaaliga waa u baahan laakiin bara ii taagay soomaaliga markaa soo bandhigaysa waa inaad keentaan luuqadda mayga qofku hadlo isbaantiyaas markuu hadda ka bacad haddii qabadaasaan soomaaliga daqiiqaa laga luuqad fahma fiicna si oonayta warka badan waxaad taagan mahadsantihiin كوكا خوكا هذا خطبه نديمة يا خايل هذا هالشيء أنا لو فتمي مركا يعني قد واحد بدل يجد يوافقش على كل جيران حصلي هاي عرفك يدعى الصومالية ومهم لو وفر عليه فواحد كليه ده أوان عندي كرامة تذكر أسبوع يوافق طبعا قلت سؤالي أبغى وقال لي سؤال مثلا marka insha allah nimanka dhalinyarada isku hawlay in ay hawshaas muhiimka dadka u qabtaan aad u mahadsan yihiin xasanlida iyo sheela iyo dadkii la shaqeynayay aan wada shaqeyno jeclaan lahayn for example last one I'm going hal meel aan subsanay jeclaan lahayn dadka dhan Soomaali kama imaanin laakiin Soomaali asla nahni soo gobol shan meel hay shan xidigo meesha ku leeyahay shudul maame soo ana xanaag Soomaali keenay كان ودتينا هاي ونسكرنا هاي ونسكبونا هاي حنودي كلنا واحدة أنا سؤال وإن شاء الله تعالى نبقى سوينا ورشقين كسبيشل دخلك إيو إذا وحلو يقانون بدنا يشتغلين وحكوا الشغلين كنا دخل كان أولا لنا وبعدين بدأوا بمدة الصومالية وحكوا الشغلين كنا واحد كسر وطابانيا المعنى يقول كنا يصير شيء كود التنبان والشغلين والدين بدنا ماشي عن كبقان تفتك أنت وكل الله لهاي حلو بهاي أيقن إنك جالسينو ماشي جو لوجو تبو ماشي جو عن لوجو تبو أنت جوكت وين محل نسيب ويشان لكن وحاجة إن كلو قبل يساعدنا إن ما رتي المصادرة أو لوجو تبو فنيدا أو لسوجي إن شاء الله أنت ساعدك عصنا نوانكم مع سنتين dhibkiina saacadooyin ay marabana soo dhigay bandhigan iyo tababarkan xambaarsan hidaheena dhaqankeena iyo taariikhdeena ayaa waxa uu ku soo dhamaaday si xiisad iyo xamaasad leh waxa uu barnaamijkan idinkaga imaanayaa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo ah Cabdulaahi Shiine